puntland hodan siciid ciise madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiiradiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa golaha baarlamaanka madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan farole golaha wasiirada ila socda wafdiga ka midka ah xubnaha baarlamaanka labada aqal wafdiga ka midka ah salaadiinta dowladaha dariska aan nahay iyo dowladaha saaxiibaha nahay iyo diblomaasiyiinta iyo marti sharafta halka nagala soo qayb gashay beesha saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa mahad leh allihii la khalqay oo halkay suukahay keenay maanta oo noo suurtageliyey inaan kulligeen markhaati ka wada ahano daahfurka aan maanta ku furayno garoonkan garowe aan loogu magac daray jenaraal maxamed abshir muuse allah u naxariisto. waxaan u mahad celinayaa dowladda puntland ugu horreeya madaxweynaha mar kale iyo shacabkeeda guud ahaan sida sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen oo wanaagsan oo diiran. waxay runtii soo xasuusisay febraayo 8 markii meel walba laga banaan baxay oo laga taageeray dowladda cusub oo hadda ku dhow hal sano. runtii waxay ii muujisay shacabka soomaaliyeed weli inay u hamuun qabaan ama ay taageersan yihiin dowladdan halka sana aan jirsan weli waa ku mahadsan yihiin reer puntland aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa dowladda. taas waxay muujinaysaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay isaga mid yihiin dowlad jaceylka oo farriintii annagu aan sheegnay markii nala doortay oo ahayd dowladdan waa dowlad shacab ah inay aamineen oo taageeradoodana ay ka dhabeeyeen waana xaqiiqa bacdamaa dowladdan intaa shacabku ay ka heshay taageero weyn. dowladdan shacabka iskale soomaaliyeed waana adduunkay ka jirtaay dalalka dimuqraadiyiinta ah dowlad walbaba shacabka iskale. shacabku waxaa laga rabaa marka inay siiyaan taageero joogto ah. taageerada joogtada waxaa ka mid ah sida madaxweynaha uu sheegay in garoonkan maanta ka furan halkan ay ka wada qayb galeen guud ahaan shacabka reer puntland ganacsatadooda iyo culammadooda iyo salaadiintooda iyo cid walbaba ay wax ka geysteen. waxa weeye waa taageerada looga baahanya shacabka inay qayb ka noqdaan horumarka dalkooda. haddii shacabkaasu ay taageeraan dowladdaasi xaqiiq waxaa ah in maamulkaasi uu horumaro. waxaa laga rabaa shacabka inay difaacdaan oo ay ilaashadaan waxay haystaan oo isbeddelkan uu ku yimaado waxay ku ballameen ay isku waafaqsan yihiin oo sharciyeysan. idinkana waa ku ammaanan tihiin runtii reer puntland laga soo bilaabo 98 ilaa hadda sida wanaagsan oo aad ku taageertaan mar walba dowladda timaada gacan u siisaan aad u ilaashataan wax ugu horreeya oo laga rabo shacab inay ilaashadaan oo ah nabadda. nabaddaa waxay keentaa marka xasilooni siyaasadeed. waan sheegnaa mar walba nabaddu waa furaha horumarka. haddaysan nabad ka jiri lahayn puntland intaasoo eerboor iyo intaasoo jidad iyo weliba madaxweynaha igu soo wareejiyey shalay magaalada garowe ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo runtii waa wax laydinku ammaano. horumarkaasna waxaan ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka soomaaliyeed. waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. waxaa kaloo muhiima inaad dul qaadataan shacabku inuu dul qaato. dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sano maaha. waa wax taxana ah oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan. marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay maxaan ku yidhaahdaa adkeeyaan maamulkooda
laakiin shacabkana waxaa laga rabaa inay dulqaataan aysan is oran ilaa waxaa leeyahay Roma hal maalin kuma dhisman annaga 27 sano waxaan ku jirnay dhibaato joogto ah oo idinka ugu horeeyay wixii dhibka ugu horeeyay oo soo arkay dhismaha dawladuna waxay qaadanaysaa muddo dheer hal maalin ma marka waxaa la rabaa shacabku inay u dulqaataan maamulkooda hadduu yahay dawlad goboleed iyo hadduu yahay federal oo lagu adkaysto wax la continuity lagu adkaysto shacabka waxaa laga rabaa inay qayb ka noqdaan dhaqaalaha maamulka markaas ka tirsan yihiin hadday tahay dawlad goboleed iyo federal inay bixiyaan waxa aan caalamka ka sugayno waa wax dad laga soo aruuriyay idinkoo kale ah waxay ku timaadaa dhaqaale aruurinta in shacabku horta uu ku kalsoon yahay dawladooda annagana waxaan laga rabaa inaan kalsoonidaas aan ka dhamayno oo aan hirgelino waxa shacabka ay naga rabaan Soomaaliyeed idinkana waxaa laydinka rabaa inaad dhaqaalo ku kaalmaysaan dhaqaalaha macnaheedu waxay tahay canshuurta waa qaran way canshuurta inaad idin ka lex jeclaysan maxaa yeelay haddaan niraahno dawladda shisheeye wax ka sugaynaa waa wax dad laga soo qaaday wax cidka ka yimid ma ah waa dad idinkoo kale oo isxilqaamay oo dawladahoodaas dimuqraadiga aaminay oo si hufan oo wanaagsan u baxsha canshuurta dawladdaasna ay u maamusho sidii dadku ay u og yihiin annaga waxaan laga rabaa marka dawlad goboleed haddaan nahay iyo haddaan nahay federaal waxaan laga rabaa wada shaqayn dhexdeedna ah waxaan laga rabaa dawladda dhexdeeda federaalka inay wada shaqayn leedahay uusan khilaaf imaan maxaa yeele hadduu khilaaf yimaado waxaa imaanaya wax alla wixii horumar ah inay istaagaan oo aan loo danayn dadka Soomaaliyeed aan loo danayn dadka guudna aan loo danayn marka dawladda dhexe ay nabad tahay oo heshiis tahay oo wada shaqayn leedahay inay la shaqayso dawlad goboleedyada iyaga naftigooda taas waxay ku imaanaysaa marka guud ahaan dalku inuu isqabsado horumarkiisa oo qolooyinka nabadiidka ah oo dhibka lagu haya aan meel uga soo jeesano oo aan uga adkaano waxaa laga rabaa dawladda annaga naga rabtaan hufnaan in waxa aad bixisaan oo canshuurihiina inaan si wanaagsan idinku maamulno oo ilaahay hortiisa oo aan dib idinku soo celino adeegeeda hadday tahay biyo nadiif hadday tahay iskuullo hadday tahay jidad hadday tahay infrastructure sidaan ka arkay hadda magaalada Garowe hawsha wanaagsan oo ka socota in dib idinku soo celiyo wixii aad bixiseen oo si wanaagsan idinku maamulo tan ugu muhiimsan waxay tahay soo celinta sharafka ummadda Soomaaliyeed oo naga luntay 27 sano ka hor inaan dib u soo celino sharafkii iyo qiimkii aan caalamka ku lahayn soo celino taasna waxay ku imaanaysaa annagoo xiriir wanaagsan la samaysana caalamka intiisa kale oo dal walbaba aan saaxiib la nahay dal walbana dalahooda aan kala shaqeynayno iyagana dalayn nagala shaqeynayaan iyadoo ay ku salaysan tahay mutual interest oo laba dhinac ah oo aysan ahayn mid dhinac u jarjeerta aysan ahayn iyadoo weliba ku dhisan wada shaqayn iskaashi iyo is-ixtiraam taasaa waxaan aaminsanahay inay ku soo noqonayso sharafka Soomaaliyeed oo ay ka bilaabatay shacabka oo ku xigto dawlad goboleedyada iyo annagoo federaalkii ah haddaan saas sula qabsanno oo aan mid nahay oo aan midaysan nahay caalamkuna waana ixtiraamayaan waana sharfayaan waana nala shaqaynayaan tan kaloo muhiimka waxay tahay amniga inaan ka wada shaqayno dhibka koonfurta yaalla Puntland iyo waqooyi iyo meel walba waa yaalla dhibka kuwa lagu haya oo shabaabka ah markay culays dareemaan khasbiyan waxay aadi karaan meelaha ay leeyihiin waad ku dhuman kartaan oo aan is leeyahay hadda inay bilaabeen inay soo galaan buuraha Puntland isku mowqif baan ka nahay waxaan ku jirnaa front yaa ku jirnaa waana la wada dagaalaynaa cadowgaas Soomaaliya haysta oo dhibka ku haya hadday joogaan Puntland iyo hadday joogaan koonfurta hadday joogaan saas darteed waxa weeye inaan adkeenno amniga inaan adkeenno meel walba Soomaalida joogtay amniga adkayso tan kaloo ugu dambaysa kusoo gabagabeynaa waxay tahay xoojinta dimuqraadiyadda intaasaan sheegay waxay horumarin u tahay waxay u tahay aasaas horumarka dalka oo ugu horeeyo eerboorada adkaysaan oo dhisay haddii aysan jirin dimuqraadiyad ilaa waa aragnay wax walba oo dib waa soo aragnay maanta waxay tahay dimuqraadiyadda inaan shacabku celino shacabku ay doortaan qofkii ay rabaan shacabka ay doortaan xisbiyo ma aha qabiil shacabka ay doortaan qofka isleeyihiin waa ku habboon yahay isu ku dooran yuu yahay isu ku dooran taas annagaa laga rabaa dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah inaan soo gaarsiino insha Allah hadduu ilaahay hado electionka soo socda doorashada soo socota
قفل بو الصومالية أو لجاري كرو إنه هلو فرصة وقعديه ونوقعديه حزب أو ربه حزب بدونه وصور شيء ولكن سلام على الجلة أو مركز صوب حين يقول أبو ضلكي أنا صعدايا هيجتري أبو أنت صدا وضك أقول فوضية إنه كفر تحزب ماشان حبيس ساسان هرمرك صومال بجاتنا إن قف كل قدرته ولا كيسة شرف كيسة كلام كيسة وحقبة كيسة وفنان كيسة يحس بقوته وتاجيه سناهين نكالي وعد معه وحاسي صومالي وقصو جبتي دباتوين بدل يعني نجسو جاري وأركيس الماش ما تمشي أن تاجنا هاي يوم من ملعانتنا صومالي هورا وسعته صومالي هم وراته وما تدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته